xaflad lagu soo dhaweynayay boqor Cisman Maxamuud oo loo yaqaano boqor buur madow oo ka soo jeeda Jamhuuriyadda Somaliland ayaa waxay ka dhacday xaafadda Hammersmith oo ku taala galbeedka magaalada London. xafladda iyada waxaa ka soo qayb galay jaaliyada kala gadisan oo kasoo kala jeeda beelaha Soomaaliyeed waxaana ka mid ahaa jaaliyad ka soo jeeda Jamhuuriyadda Somaliland, jaaliyada Jamhuuriyadda Djibouti iyo jaaliyad ka soo jeeda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya. munaasabada waxaa hadalla qiimo yaqaayay ka jeediyay marti sharafeed lagu soo casumay xafladda iyo maamulkii soo qabaqaabiyay xafladda sida Jamhuuriyadda Djibouti oo iyaduna mar laba aan la ilaawi kalin haweenka ka soo jeeda oo muujiyay iyaga oo labisan dhaqankii lagu yaqaanay hidaha iyo dhaqanka reer Djibouti iyadoo ay ka muuqdeen run ahaantii ummadii halka iskugu timiday oo mar walbana ay caan ku yihiin inay mar walba isgarab taagaan dhaqanka ummadda Soomaaliyeed. waxaad arkaysaa caalamku wuxuu ku wareeray inuu Soomaaliya dawlad u dhiso dhaqaale u geliyay hadday dawladdii Cabdiqaasim ahayd hadday tii Cabdullaahi Yuusuf ahayd hadday tan tahay malaayiinka dollar ee loogu leeyahay dhaqaalaha la geliyay Soomaaliland lama gelin kun ciidana baalaankaas ay doonaysaa amniga sugan waxaan idinku bishaareeyaa ciidamada Soomaaliland maanta inay ciidamada ugu xoog badan yihiin ee amniga ilaaliya ee dhibaatada ka hortaga inay yihiin xukuumaddu haddii meelo badan lagu qiimeeyo waxaan leeyahay amniga ay sugtay iyo weli ciidamadii qaranka maraykanka bangiyadeedii waxa ku dhacay wadagtiin oo waxa dhacay General Motors iyo waa kaceen bankii yaraaye weli uu yaalay teebku weli ciidankii mushaarka uu ka qaataa shaqaalii dawladda uu qaataa waxa la wax ka xumaadeen inuu jirto in loogu hambaliyeeyo oo lagu ilaaliyo oo waxay qabatay oo ay qabanaysaa amniga xukuumadda lagu taageero oo qabaan taas jaaliyadda reer UK doorka ay ku leedahay dib u dhiska dalka qiimaha ay leedahay waxtarka ay gelisay in looga mahadnaqo anigoo ku hadlaya maanta afkii shacbiga reer Somaliland iyo madax dhaqameedkiisii waxaan leeyahay ma ilaawi karo doorka iyo qiimaha agteeda ku leedihiin ma ilaawi karo gaar ahaan waliba gabdhaha aan idhaaho وانيغو ها علم عثمان وبري تلفزيون ETN Hammersmith قلبيتك مقالة لندن.